بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم إذا لهنتين بملك استجوكتان جمعوها يدين وعنادو ومد كمدا عشرة دي أينو برنشري جمعياشا وحينو برانينا إن شاء الله عشر كمدا عشرة دي تهاناها أها ومد كمدا كوي كمبيوتر كا أينو برانينا إن شاء الله عاوا hore waynu u soo bilowna casharada waynu bilownaayeen kuwii baynu ku sii daba qabanayna insha Allah casharkana qaybihii ugu dambeeyay hadaa xusuusataan waxaan ka soo hadalnay arrange iconiska sida loo arrange gareeyo iconiska sida loo habeeyo loo hagaajisto shaashada ku yaala soo kale waxaan soo baranay sida loo qariyo iconiska ama waxyaabaha shaashada ku yaala sida loo qariyo soo kale waxaan ka soo hadalnay waxyaabaha sida waxyaabaha ku dhex jira maxay tahay waxaan loo yaqaano taskbarka ama computerka qaybtiisa hoose sida taskbarka loo qariyo sida taskbarka loo soo muujiyo sida taskbarka loo kala wareejiyo sidoo kale kuwaas oo dhan ayaynu soo baranay oo cashkankii ka horeeyay aynu ku soo baranay insha Allah kan soo socda caawa ayaynu insha Allah waxaynu ku baran doonaa hadii Ilaahay markaa uu nagu simo how to close maximize and minimize the page sidee page-ka loo xiraa loo weyneeyaa loo yareeyaa intaas ayaynu ku baranaynaa cashkeena qaybta hore shaashada markay sidan oo kale aynu ugu dhex jirno oo ay iconiski sidan inoogu muuqdaan oo ay shaashadiisa ay noogu yaalaan computerku wuxuu leeyahay close ayuu leeyahay soo kale wuxuu leeyahay maximize soo kale wuxuu leeyahay minimize ayuu leeyahay okay shaashadii waa tan way noo muuqataa intan ayuu leeyahay marka computerkii oo shaashada uu ku leeyahay shaashada noocan ayaynu computerka isticmaalaynay okay shaashadii markay noocan tahay oo desktopkii kan yahay iconiski ay ku yihiin ilaa sawir ahaan ayaynu soo qaadanay date and time-kii uu kan yahay taskbar-kiina uu intan inoo yahay computerku halka wuxuu ku leeyahay close calaamada waxa la yiraahdaa close calaamada cas computerka waa laga soo xiraa oo faylka ku furan markaad ku dhufato ayaa laga soo xiraa taas halka ku taala waxa la yiraahdaa maximize taa waxa la yiraahdaa maximize oo iyadu shaashada ayay ku weyneynaysaa oo ay ku ballaarinaysaa tanina minimize bay ka dhigaysaa way yareynaysaa daaqadii ama hoos ayay kuugu dejinaysaa oo fayl kale saad u soo furato ayaad hoos uga dejisanaysaa marka qaybtaas shaashada ayay ka mid tahay saddexdaasi ka mid yihiin inaad isticmaasho aadna waa loo isticmaalaa inta badan oo aad ayaa loogu badan yahay marka okay haddaba using close maximize and minimize buttonka maxaa loo isticmaalaa waa inaynu barano waxa loo isticmaalo ereyga close ee aynu arkaynay calaamadii casayd means macnaheedu waxa weeye to close the page in page-ka la soo xiro ama marka maxay tahay faylka ku furan in la soo xiro okay ta ku sii xigta waxay ahayd maximize macnaheedu waxa weeye to enlarge windows in la weyneeyo oo la ballaariyo windowski ama daaqadii to it is maximum laga dhigo wax weyn laga dhigo ama size-keeda ama largest size laga dhigo cabir weyn laga dhigo markaa okay minimize ayaa ku xigta minimize macnaheedu waxa weeye to shirki windows in la yareeyo windowski ama laga dhigo it is minimum laga dhigo size-keedana laga dhigo smallest size cabir yar laga dhigo markaa okay halkaas waxaanu kaga imanaynaa close maximize iyo minimize haddaba how to use bind sidee ayaa loo isticmaalaa okay bindigu muxuu yahay bindigu is ready for drawing program that you can draw whatever you want to draw bindigu waa meel wax lagu sawirto weeye oo sawirada la geeyo oo wax lagu sawirto weeye bindigu is ready wuxuu diyaar u yahay for drawing inaad wax ku sawirto program aad ku sawirto guri oo kale aad ku nashqadayso soo kale maxay tahay aad waxa doonto aad ku sawirto ayaa gurigu ayaa loo yaqaanaa maxay tahay bind loo yaqaanaa
okay haddaba bayntiga sidaad u soo furato oo aad u tagto bayntiga sidee baad xaggaad tegaysaa click waxaad tiraahdaa start button-ka ku dhufo start button markaad ku dhufato select waxaad ka doorataa program ka dooro markaad start button-ka ku dhufato select program ka dooro waxaad ka sii doorataa programka select waxaad ka sii doorataa accessories ka sii dooro accessories markaad ka sii doorato waxaad ka sii dooranaysaa accessories-ka click baynti ku dhufo the baynti windows will then open you use waad isticmaali kartaa markaad intaas oo dhan aad samayso marka waad isticmaalaysaa waxa loo yaqaano baynti waad isticmaalaysaa okay bayntiga nooca uu sawiran yahay waa noocan oo kale sawirkiisu kan ayuu noqon karaa oo bayntigu sidan oo kale ayuu u sawiran yahay waa kuwan qalabkii la isticmaalayay meeshii wax lagu sawirayay halkan laga soo sawirayay baynti waa sida qaabkaas ayuu kuugu soo bixi doonaa laakiinse kuwani dheegan ayay raaci doonaan halkan shax bannaan oo weyn bay ku noqon doontaa kuwanina waa toolskiisii lagu isticmaalayay weeye markaad intii aad raacdo ayaa intani shaxdani kuu soo bixi doontaa stebiskii aynu ka soo sheekaynay markaad raacdo okay haddaba how to save file in a baynti cashar baan qortay file baan maanta dhan diyaariyey waan dhameeyey sidee ayaan u save garaysani oo aan meel u dhigani markaa waxaan u baahanahay inaan meel dhigto oo aan u baahan karaa waxaad oranaysaa file menu ayaad ku dhufanaysaa dabeedna click waxaad oranaysaa save as baad ku dhufanaysaa ama save as ayaad ku dhufanaysaa bogoska wiil abiirkaaga muuqanaya iyo adiga kuu muuqan doona inter waxaad gelinaysaa dabadeedna danee magaca of your file ayaa faylka aad u bixinayso magaciisa ayaad gelin doontaa halkaa then intaa kadib click waxaad oranaysaa save button-ka ayaad ku dhufanaysaa markaas wuu kuu save garaysan yahay saas buuna kuugu save garaysmaya how to get a new page sidee ayaan u helaa page cusub oo kii horaan wax ku qorayay baabayga xumaaday waxaan rabaa page cusub inaan maxay tahay la imaado click file menu ayaad ku dhufanaysaa dabeedna waxaad ka dooranaysaa click new baad ka dooranaysaa click waxaad ku sii dhufanaysaa dabeedna dialog bogoska ku soo baxaya wilaabir ayaa ku muuqanaya iyo adigu click baad ku dhufanaysaa no button-ka ayaad ku dhufanaysaa okay waa markaad doonayso inaad file cusub aad la soo baxdo okay how to open a file in a baynti faylkii hore aan save garaystay ee bayntiga aan ku save garaystay sidee ayaan ula soo bixi karaa ama aan u soo furan karaa click waxaad oranaysaa file menu then click open baad oranaysaa open dialog bogoska abiir kuu muuqanaya ayaad ku dhufan doontaa select waxaad dooranaysaa enter the file name magacii baad gelinaysaa iyo waa inta aad doonaysay to open inaad soo furto then click waxaad oranaysaa open ayaad oranaysaa oo aad click ku dhufanaysaa markaa okay cashka ku sii xiga sawirkan ayaa markaa kuu soo bixi doona markaad file soo furanayso aad soo furto faylkii halkan ayuu ku keeni doonaa meesha open aad ku dhufanaysaa waa halkaad ka search garaynaysaa file name-ka aad ku qoraysaana waa halku kaaga soo bixi doonaana waxa weeyaan waa halkaa marka qaybtan hoosena waad akhrisan kartaa si loo furayo weeye magacii aad ku qoratay faylka aad ku qoratay ayaa halka aad gelinaysaa saas ayuu shaxdu noocaas ayay kuugu soo bixi doontaa dadna faylkaagii kaasoo noqonaya dadna waad soo furi doontaa waxaad oranaysaa open ayaad oran doontaa markaa okay okay how to exit windows sidee la isaga soo xiraa gabigiisa exit looga soo baxaa maxay tahay windowska marka la doonayo in laga baxo waxaad ku dhufanaysaa click file menu baad ku dhufanay then click baad oranaysaa exit ayaad oranaysaa then exit button-ku will then intaa kadib close the page-ku soo xidhmi oo marka waa soo rafacmayaa how to transfer file in a baynti with a desktop tana waxa weeye how sidee baad to transfer loogu gudbiyaa fileka in a paint loogu gudbiyaa with a desktop-ka darow waxaad sawirtaa a picture iyo wayntii aad doonayso to send inaad dirto marka hore waa inaad sawirtood ku sawirto desktop drawing paintiga markaad paintiga joogto waxaad doonayso inaad dirto waa inaad desktop-ka aad ku soo save garaysato oo aad markaa aad xaggan keento click waxaad ku dhufanaysaa file menu ayaad ku dhufanaysaa okay dabadeedna click waxaad oranaysaa
as background ayaad ku sii dhufan doontaa dabadna click okay buttonka ayaad dhahaysaa then dabadna save baad oranaysaa oo waad save garaynaysaa okay how to use WordPad kana waxa weeyaan waa WordPad ki weeye mid walba sharxiisa iyo waxa uu yahay waan idin ku dhufanayay okay halkaas markaynu marayno waxaan ka soo hadalnay waxa loo yaqaano file transfer in a Paint with a desktop click draw waa inaad samayso dabadna picture you want to send it desktop drawing Paint file kii baad soo furay file menu-gii dabadna set waxaad ku dhufanaysaa shaxdan markay kuu soo baxdo tan ayaad ku dhufanaysaa background kaas ayaad set background ayaad ku dhufanaysaa marka waxa weeyaan hawshaadii marka way ku dhamaanaysaa how to use WordPad ka sidee ayaa loo isticmaalaa oo muxuu yahay marka hore WordPad ku is one of the applications waa mid kamid ah application-ka iyo adigu kan reedaad wax ku qoran karto iyo tagas qoraalkaaga by using adigoo isticmaalaya many options wuxuu leeyahay optionna fara badan such as waxa kamid ah waxyaabuhu leeyahay style inaad wax qurxiso hagaajiso underline inaad hoosta ka xariiqdo bold inaad ka dhigto sida qoraalkan halkan idinka muuqda underline kuna waa tan hadeer hoosta halka kaga xariiqan madowga uu ka yar duwan yahay kuwa kale na waxa la yiraahdaa bold ki weeye Italia inaad farti yar jiifiso right inaad midig geyso center inaad dhexda dhigto left inaad bidix geyso anitc iyo wixii la mid ah intaba uu leeyahay okay click hadaba start button ka ayaad ku dhufanaysaa on the taskbar taskbar-ka at the bottom of your screen adiga shaashadaada danka waxaad doonaysaa markaad WordPad soo furanayso ayaa tan la sameeynaya maxaa la sameeynaya click start button baa lagu dhufanayaa on the taskbar-ka start menu-gii baad ku dhufanay of the bottom your screen kaaga ahaa then select program baad ku dhufanaysaa programka halka menu-ga ayuu ka sareeyaa halka markaad ku dhufato select accessories baad ka dooranaysaa ka bacdina click waxaad ku dhufanaysaa WordPad this picture will then appear ka bacdi sawirkiisii ayaa ku muuqanaya oo shaxdii sawirka ayaa ku soo bixi doonta halkan waa aragtaan waa tan shaxdiisa halka ka soo muuqatay halkan waa choose font halka farta ka dooranaysay font size-kii cabirkii farta halkan bold aad ka dhigaysay Italia halka ka dhigaysay color-kiiba halka ku jira halkana bullet numbers kiba ku jira soo kale cut ba halka ku jirta undo cut waa jaridii undo soo celintii underline hoosta ka xariiqidii lift bidix geyntii center dhexda geyntii iyo waliba maxay tahay right oo midig geyntii WordPad-ki saas ayuu kuugu soo kacaya midabka noocaas ayuu yeelan doonaa saas uu kuugu soo kici doonaa marka okay and how to save hadaba see loo save gareystaa file ka see loo save gareeyaa in WordPad ka sidee save file loogu save gareeyaa click waxaad oranaysaa file menu baad ku dhufanaysaa ka bacdi waxaad ka sii dooranaysaa click aad oranaysaa save as baad ku dhufanay ama save as and dialog box-ka will appear ku muuqanaya iyo adiga marka ku muuqanaya halka ku dhufato okay enter waxaad gelinaysaa the name of your file magaca name-ka ayaad ku qori doontaa halka ku soo baxda then click waxaad oranaysaa save button-ka ayaad ku dhufanaysaa ka yar hooseeya marka in yar u jira how to get a new page sidee loo helaa new page markaan joogo WordPad-ka sidee baan u helayaa new page click file menu baad ku dhufanaysaa click waxaad oranaysaa new soo kale waxaad ku sii dhufanaysaa dialog box-ka will appear ku muuqan doona adiga click okay button-ka ayaad ku sii dhufan doontaa marka qaybta kalena how to open file sidee loo soo furaa file in a WordPad oo WordPad-ka file-kii hore aan save gareystay meesha aan diyaarsaday oo ii kala badhnaa baan doonayaa barkii kale inaan buuxiyo sidee baan u soo maxay tahay furanaya waxaad u soo furanaysaa click file menu baad ku dhufanaysaa waxaad ka sii dooranaysaa open ayaad ka dooranaysaa dialog box-ka abir ku muuqanaya ayaad open soo oran doontaa markaad open doonto select waxaad gelinaysaa or ama enter aad gelinaysaa select waa dooranay or ama enter waad gelinaysaa the file-kii iyo adigu inta aad doonaysay to open inaad soo furto ayaad halka gelinaysaa then click waxaad oranaysaa open ayaad oranaysaa saas ayuu file-kii kuugu furan yahay marka how to access Windows sidee ba la isaga soo xiraa Windows-ka aan marka ku jiro aan ku shaqaysanayo sidee la isaga soo xiraa okay click file menu baad ku dhufanaysaa soo kale waxaad ku dhufanaysaa click exit baad oranaysaa marka si aad uga baxdo file-ka aad uga baxdo then exit button-ka will then close the page wuxuu ku soo saari doonaa ama ku aad arki doontaa inta ka bacdi
inuu soo xidhmay page-ka markaa. Okay, haddaba how to use undo, sidee loo isticmaalaa undo, soo celinta sidee loo isticmaalaa. Undo is used waxaa loo isticmaalaa to restore in dib loo soo celiyo any deleted wixii la delete items ee waxyaabaha ahaa of your work shaqadaada ahaa, waxyaabihii aad delete sidee baa dib loogu soo celinayaa. dib baa wixii loo soo celinayaa, undo baa la samaynayaa. tusaale ahaan shay baad waxbaad delete wixii baad markaa dib u soo celin aad u celin rabtaa, click edit menu-ga baad ku dhufanaysaa, ka bacdina waxaad ka sii dooranaysaa click undo button-ka ayaad ku dhufanaysaa si aad u soo celiso. kolley dee waa practical baan kullu aan idinku wada tusi doonaa insha Allah. anigoo practical-ka samaynaya ayaynu isla eegi doonaa, cashka ku xiga ayaan arki doonaa. then dabadna the undo-daas waxay odhanaysaa restore by any item clear or delete, wax kastoo aad delete garaysay ama clear garaysay dib bay kuugu soo celinaysaa. Okay, highlighting, in wixii la highlight gareeyo oo markaa maxay tahay la highlight gareeyo, la hareeyo, highlighting lagu sameeyo. highlighting-kana markaas ayaynu baran doonaa. how to highlight, sidee loo highlight gareeyaa your tags, qoraalka sidee loo highlight gareeyaa, qoraalka aad qorayso sidee loo highlight gareeyaa. first ugu horreyn click edit baad marka ugu horeysa ku dhufanaysaa, ka bacdi maxaad ka sii dooranaysaa choose select all ayaad dooranaysaa. markaad edit raado select all baad ku wada dhufanaysaa. inkastoo badiyaaba shortcut-ka la isticmaalo oo keyboard-ka laga isticmaalo laga hareeyo, oo marka la hareynayo, marka la highlight gareynayo, undo marka la odhanayo, marka la jarayo, dhammaan keyboard-ka waa lagu wada isticmaalaa, waana idin tusi doonaa insha Allah. choose select all baad ku dhufanay. use waxaad isticmaalaysaa cut jaris iyo waliba etc wixii la mid ah ayaa isticmaalaysaa. Okay, how to haddaba cut your tags, sidee baa loo jaraa qoraalka sidee baa loo jaraa. highlight your tags, qoraalka marka hore waa inaad highlight garayso oo aad hadhayso. highlight gareyn ka bacdina waa inaad click edit menu ku dhufato. Okay, click dabadna waa inaad ka tiraado oo aad saa ku jirto. Okay, your tags will then disappear or cut, ma muuqanayo ama uu jarmaya. marka undo-da marka la isticmaalayo la soo celinayo waxaa lagu soo celiyaa soo kale control plus z waata halka kaaga muuqata. kad marka la jarayo waxa la qabtaa computerka la isla qabtaa control iyo x ayaa la isla qabtaa. marka la copy gareynayo qoraal aad copy gareysanayso waxa la qabtaa control plus c baa la isku qabtaa, intaas la isku qabtaa. marka qoraalka soo copy-isay aad paste gareynayso dhigayso waa control plus v oo kor u jeeda ayaa la qabtaa oo saal la isla qabtaa. past special gaar ayay u tahay. clear waa delete ayaad ku deleedaysaa. select all markaad dooranayso control a ayaad dooranaysaa. find markaad raadinayso wax oo aad wax doonayso control f ayaad taabanaysaa. replace markaad goobta ka bedelaysona waxaad qabanaysaa control h ayaad qabanaysaa. waa kuwa keyboard-ka markaa aad u isticmaali doonto iyagana kuwan aynu ka soo hadalnay hadda halkan ka soo hadalnay. Okay, and how to use copy and paste, sidee ayaa loo isticmaalaa copy and paste, sidee loo isticmaalaa to make inaad samayso many copies, copy fara badan of your tags ee qoraalkaaga in the document ee documentiga weeyi copy-ga marka lagu sheegayo iyo paste-ga inaad qoraalkii copy-ayso mid kala dhigto. highlight marka hore your tags qoraalkaaga waad highlight gareynaysaa. then click edit baad ku dhufanay menu-ga, select copy to go and other place, dabadna copy-gii goob kale ayaad la aadaysaa. click edit another time, mar kale ayaad ku dhufanaysaa edit another time waqti kale. click paste baad ku dhufanay, your copy will then appear other place, dabadna qoraalkaaga meel kale ayuu ka muuqan doonaa. how to clear your tags, sideeba qoraalkaagaba loo tirtiraa ama clear looga dhigaa meesha. waxaad samaynaysaa click edit menu baad ku dhufanay, select clear baad ka dooranay markaa. then inta ka bacdi tagas will then clear, qoraalka then wuu markaa uu baabi'i oo meesha uu ka bixi markaa. Okay, cashkeena ma caawa halkaasaan ku joojinayna insha Allah. qaybta practical-ka ayaan raacsiin doonaa hadda la yidhi oo qoraalkan sidiisa inagoo ku practice gareynayna insha Allah. halkaas ayaan ku joojinayaa. waad ku mahadsan tahay daawashadaada, 100% waan kaaga mahad celinaynaa.
wixii idea iyo fikrad gaar ah aad qabtona insha Allah waad nala soo wadaagi kartaa halkaas ayaan ku soo gabagabeynaya wabillahi tawfiiq waxaan ku leeyahay cashka xiga kan oo aad u xiiso badan hawdayma la'aan insha Allah haddii aynu gaarno wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum wa rahmatullahi